waxaan rabaa horta waddankan Soomaaliya waa waddan islaam ah sharciga la sameynayana waxaa loo sameeyaa shacabkan islaamka in lagu dhaqo. waxaan rabaa qodob ka mid ah qodobada wasiiradda ay soo gudbisay siduu u hadlayo. qodobka afaraad xukuumaddii hadda dhacday soo ansixisay oo wasiiradda soo gudbisay siduu u qoran yahay bal aan fiirino aan dhegaysanno. horta ummadda Soomaaliyeed akhlaaq ayay leeyihiin. hadallada qaar xitaa siiqada loo qoro in laga fiirsadaa fiican. qodobka afraad sidaanu u qoran yahay daliilo dhegaysta. qof kasta wuxuu gelayaa fildambiyeed kufsi ah haddii uu horta sharcigan wuxuu dhahayaa qof kasta gabdhaha xitaa fildambiyeed kufsi ay geli karaan. yacni qof kasta wuxuu gelayaa fildambiyeed kufsi ah haddii uu ma rabin inaan aqriyo laakiin waa xishoonaya laakiin waa akrinaya si ula kaca u geliyo haba yaraatee wax kasta ee la geliyo daloolka xubinta taranka kooma dhegaysta hala dhegaysto kooma Soomaalidu way ka xishootaa futada kooma ama xubinta taranka ee qof kale ama adeegsado wax kasta ama xubin ka mid ah jidhka iyo faqradda ba dhegaysta marka. faqradda ba wuxuu leeyahay qofka kale uusan ogolayn waxgelinta shuruudda ku xiran waxaa waay inuu ogolaado. shuruudda keliya ku xiran inuu ogolaado waay. hadduu ogolaado ayadoo halkaasi ay isku haystaan haddii uu ogolaado itmiinis ma aha dembi maaha. waxaa fiirisaan marka shareecada islaamka ma ogola. waxaan rabaa xildhibaanada inay si fiican u soo jeestaan rabaa. xildhibaan waxaan kuu sheegayaa marka ugu horreysa waddankan waa waddan islaam ah. shuruucda la samaynayo waxaa loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed in lagu dhaqo. waddankan diin ayuu leeyahay laakiin nasiib wanaag midaan idiin sheegayaa dastuurkan dadka soo sameeyey khubarada dastuurkan soo qortay hal qodob oo wax walba ka badbaadinaya baarlamaankay ku soo dareen waxaan waafaqsanayn yacni shareecada islaamka iyo maqaasideeda sharci ma noqon karaan lamana keeni karo baarlamaanka. marka kan wuxuu fasaxa u fiirsada wuxuu fasaxayaa zinada wuxuu fasaxayaa in dad khaniisina isu tagi karaan u fasaxayaa. wuxuu fasaxayaa because futadu ka hadlaa futada laga geliyuu ka hadlayaa. wax badan waxaan ka xishoonnay wasiiradda waxay soo gudbisay inaan laga aqrin meeshaan laakiin duruuftaa kallifaysa inaan aqrino aan caddayno. waxaan idiin sheegayaa dad badan waxay mar walba soo celcelinayaan waay sharciga loo keeni waayo. waxaan idiin sheegayaa sharcigaasi guddiga hawshaan u xil saaran in badan aan ka wada hadalnay. teedi kale hal qodobaan idin caddaynaya. sharcigan xukuumadda markay ansixisay xukuumaddii hadda dhacday culammada Soomaaliyeed oo dhanaa ka hadashay. waxay yidhaahdeen qaarkood dadka sharcigan soo ansixiyey waxay ku sifeeyeen inayn islaam ahayn. sidaa daraaddeed waxaa loo saaray ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo guddi asaga madax ugu yahay oo culamaa u diinka Soomaaliyeed dadka la yaqaano ay ka mid ahaayeen. waa laga soo shaqeeyey sharcigii wasiiradda loo yeeray waxaa la yidhi waxaan rabnaa sharcigan in la saxo
wasiiraddu waxay tiri wixii aan soo qortay keliya ayaa xukuumadda laga ansixinaya. wuu ka soo gudbay. waxaan fariisinay guddiga joogtada sharciga markuu noo soo gudbay. waxaan fariisinay guddiga joogtada ee baarlamaanka golaha shacabka. waxaan tusnay, waxaan ku dhahnay qodob dastuuriya ayaa wuxuu dhigayaa in waxaan waafaqsaneen yani shareecada islaamka iyo maqaasideeda aan sharci noqon karin. xukuumaddiina waxaanay soo gudbisay, maxaan ka samaynaa? guddiga joogtada waxay soo jeediyeen inaan xukuumadda dib loogu celin ee guddoonka baarlamaanka uu qaato in sharcigan la hagaajiyo. guddoonka baarlamaanka mas-uuliyaddaasuu qaatay. waxaan wacnay culimmadii Soomaaliyeed oo aan islahayn shareecada islaamka si fiican ay u yaqaanaan oo weliba ku xeel dheer keliya ma aha shareecada islaamka qawaaniinta kalena bartay. culummo la yaqaano oo magaalada Muqdisho iyo meelo fara badan laga yaqaano. culimmadii dhowr maalmood lala fariistay. waxaan u yeernay sharci yaqaanadii golaha shacabkaan u yeernay. waa la wada fariistay. culimmadii iyo sharci yaqaanadu way fariisteen. waa la saxay. dukumenti ay soo diyaariyeen. dukumentiga ay soo diyaariyeen ra'iisul wasaaraha waxaan ku niri dukumentigan waxaa soo diyaariyey dad la yaqaano oo sharci yaqaana iyo culimmadii Soomaaliyeed. wixii khatarta ah ku jirayna waa laga saaray. waxaan rabnaa wasiiradda faraha laga saaro ee ha ku soo darto xukuumadda mar labaad soo celiso. haddana ra'iisul wasaaraha wuxuu yidhi awood uma lihin wasiiradda inay qaadato ay wax ku soo darto. idinka laysaayelaysaan yeela. waa la soo noqonnay. kalfadhiga markuu furmaya haddana waxaan u yeernay guddiga joogtada ee golaha shacabka ee baarlamaanka. guddigii haddana su-aalaan weydiinay. waxaan ku nidhi dukumentigii culimmadii iyo sharci yaqaanadii golaha shacabka ay soo diyaariyeen xukuumadda markaan u gudbinay, xukuumaddii waxay tiri idinku uun saad ka yeelaysaan ka yeela, maxaa tala ah? guddiga joogtada ah waxay soo jeediyeen, waxay yidhaahdeen sharciga sida xeeroosaadka uu qorayo ama dastuurku uu qorayo, maadaama aan awood u leenahay golaha shacabka ee baarlamaanka awood u leeyahay in uu ka bilowdo sharciga xukuumadda ay soo gudbisay ha la joojiyo. waxaa la yidhi ha ka bilowdo sharciga golaha shacabka ha ka bilowdo. sharci ayay soo diyaariyeen guddigii loo diray hawshaasi, ayagoo haddana kaashanaya sharci yaqaanadii iyo khibraddii hore ee dukumentigii lasoo diyaariyey. waxaan rabnaa marka xildhibaanada mid inay ogaadaan waddankan waa waddan islaam ah. shuruucda loo sameeyana dowladdan islaamka ayaa lagu dhaqayaa ee dowlado kale laguma dhaqaayo. conventions way jiraan oo annaga aan la galnay aan ka mid nahay, aan wada saxayna ama treatisajin. laakiin ogaada conventionada iyo treatiska waxaa ka weyn diintaa ka weyn. diintaa ka weyn. haddaad akhrisaanna waa arki kartaan. maxaa la yidhahdaa charterka akhriya oo United Nationska. waxaan diintaadi ogoleyn qof kasta waxaa saxiixaysid mala. waxaan rabaa marka qodobkan wuunuu soo noqday in badanna waa ka xishoonnay inaan saas u fasirno, because waxaan nacaynay waxaan akhlaaqda islaamkana ku fiicneen, aanu ku fiicneen dhaqanka Soomaalida inaan halkan ka sheegno ayaan nacaynay. laakiin ilaa hadda dadaa daba jooga. waxaan ku soo gebagabaynaa hadalkayga. sharcigaasi wuxuu la yaallaa guddiga. waxaana rabnaa dad fahamsan hawshaasi inay galaan, oo waxaan u baahannahay sharcigaasi in maxaa la yidhaahdaa sida ugu munaasabsan ummaddan loo soo gudbiyo.